halkani waa Gaacir Media. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan kusoo dhawaada barnaamijka waxay ku soo Gaacir Media iyo Ruushka u dhaxeeyo iyo waxa uu salka ku hayo. Kusoo dhawaada. khilaafka Ukraine iyo Ruushka wuxuu salka ku hayaa saddex arrimood. kow, taariikh dhaqan iyo dhaqaale. laba, NATO. saddex, kooxaha gooni-goosadka. taariikh dhaqan iyo dhaqaale waa midda koowaad. labadan wadan waxaa ka dhexeeya taariikh dhaqan iyo dhaqaale. qarnigii 9aad markii koox shacab ah oo la yiraahdo Ruus ay yimaadeen Kiev si ay caasimad uga dhigtaan, taasoo ku tusinaysa xiriirka ka dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, taasoo la aaminsan yahay shacabkaas Ruus inay ahaayeen ama markii dambena lagu tilmaamay Ruusiyiin. Ukraine ilaa 1991 waxay ka mid ahayd Midowga Soviet. Ukraine waxay kaalin muhiim ah oo istiraatiijiyadeed uga soo jirtay Midowga Soviet, taasoo Ukraine ay ahayd meel warshadaha waaweyn ee beeraha leh iyo sidoo kale waxay ahayd deked muhiim u ah dhinaca badda madow. Haddaba khilaafkan labadan wadan waa Ruushka iyo Ukraine waa mid xiriir qoto dheer la leh taariikhdooda, kaasoo ku sumadaysan xuduud dhuleed kuna qaabaysan saameyn istiraatiijiyadeed. Ruushka Ukraine wuxuu u arkaa meel muhiim u ah gaashaanbuurta NATO. Ukraine Ruushka waxay u aragtaa cadow haddana qayb ka mid ah dhulkeeda haysto. laba, NATO. Haddaba waxaa in la isweydiiyo mudan waxay tahay waa maxay sababta wadanka Ruushka u daneynaya Ukraine inaysan ku biirin NATO? Si aan su-aashaas jawaab uga helno, marka hore NATO ama gaashaanbuurta NATO in aan ka hadalno ayaa muhiim ah. gaashaanbuurta NATO ama North Atlantic Treaty Organization ayaa loo yaqaanaa. waxaa la aasaasay 1949. sababta loo aasaasayna waxay ahayd wadamada gaashaanbuurta NATO xubnaha ka ah sidii ay iskaga difaaci lahaayeen weerar nooc kasta oo kaga yimaada Midowga Soviet. Haddaba gaashaanbuurta NATO oo ay xubno ka yihiin 30 wadan oo ay ka mid yihiin wadamadii hore ugu tirsanaan jiray Midowga Soviet sida Lithuania, Estonia iyo Latvia. heshiiska gaashaanbuurta NATO ayaa dhigaya haddii wadan ka mid ah gaashaanbuurta NATO lasoo weeraro in ay la mid tahay in dhammaantood lasoo weeraray, sidaas darteed si wadajir ahna u wajahayaan oo ay iskaga difaacayaan weerar kasta. Haddaba marar badan Ruushka ayaa ka dalbaday NATO in Ukraine aysan ku biirin NATO, sababtan wuxuu ku sheegay in amniga qarankiisa uu halis galayo. balse walaaca Ruushka ayaa ah haddii Ukraine ku biirto NATO in xuduudihiisa gees ka gees ciidamada NATO imaanayaan, waana cabsida ugu weyn ee uu Ruushka uu qabo oo mar walba la xiriirinayo amniga qarankiisa. arrinka saddexaad waa kooxaha gooni-goosadka ee Ruushka uu taageero. 2004 ciidamada Ruushka iyo kooxaha gooni-goosadka Crimea ayaa qabsaday gobolkaas Crimea ee dhinaca badda madow. sidoo kale kooxaha gooni-goosadka ee uu taageero Ruushka waxay qabsadeen gobolada bariga ee warshadaha sida Donetsk iyo Luhansk, kuwaas oo ku yaala xuduudda Ruushka. dagaalka ilaa iyo hadda ka socda bariga Ukraine waxaa ku nafwaayay ilaa 14,000 oo qof. tirakoobka 2001 la sameeyay 50% shacabka Crimea iyo Donetsk ayaa waxa lagu ogaaday in ay ku hadlaan lahjadda Ruushka ama luqadda Ruushka. madaxweynaha Ruushka ayaa mar walba ku dooda in uu difaacayo xuquuqda kuwa ku hadla luqadda Ruushka ee degan deegaanadaas aan kor ku soo sheegnay. Haddaba saddexdaas arrimood waa saddexda uu salka ku hayo khilaafka labada wadan u dhaxeeya ee waa Ruushka iyo Ukraine.